wagaag mudan wasiir kusoo dhawo barnaamijka gaarka ama waraysigan gaarka ee telefishinka Universal oo kula yeelanaya waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad ina siisay. Assalaamu calaykum waan dhawahay aad baad mahadsantihiin. mudan wasiir dhawaan shir caalami ah oo ay markaa ka qayb galeen beesha caalamka dawladda Soomaaliya ay abaabushay ayaa ku soo dhabaaday magaalada Muqdisho siyaasadda iyo dhaqaalaha waa laga hadlay waxyaabihii dhanka dhaqaalaha leedinka weydiiyay maxaa kamid ah aad iyo aad baad mahadsantihiin Universal ina muqaabaladana la yeelataan marka labaad waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed adduunyada inaga daawanaysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. su-aashaadii weydiisay dadka shaqada halkan ka socotay labadii maalmood ayna dhaafay waxay shaqo aad iyo aad u weyn waxaan aad ugu faraxsanahay shirkaas oo sanad la ahaan jiray 6 bilood leh sanad leh oo adduunyada kale inta badan lagu qaban jiray inay noo suuro gasho dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed inay halka ku qabtaan oo intaasoo adduunka madaxay ka soo qayb galaan oo aan abaabulo oo aan qabanno oo isagoo aan waxba dhibaatay dhicin si fiican loogu kala tago iyo horta aad baan ugu faraxsanahay. arrinta labaad waxaa la isla lafaguray waxa weeyaan dadka Soomaaliya daneeyo oo dad fara badan oo meelo kala duwan ka yimid Afrikaan loo ajnabi kale loo adduunyada kale ka yimid waa dadka daneeyo waxa isugu yimi dadka dalkan in laga saaro dhibaatada laga saaro deyn cafis la gaarsiiyo security-ga laga shaqeeyo arrimaha bulshada laga shaqeeyo geedi socodka dadka nagala shaqeeya ay ahaayeen ama hay'ada caalami ka socdeen ama United Nations ka socdeen hay'ada caalami ku jira ama dalal bay ka socdeen marka shir aad u fiican buu ahaa. marka dhaqaalaha weydiisay waxa laga hadlay waxa weeye geedi socodka deyn cafista iyo dhaqaaluhu halka uu marayo ayaa runtii aad loo falaqeeyay dhaqaaluhu iyo security-ga iyo arrimaha bulshada iyo magaranaysa siyaasadda loo dhanyahay afartaas ay haayeen afartaa qaybood ayaa labadii maalmood la isla lafaguray. maalinta u horeysa waxay ahayd arrin la yiri technical oo aad loo gelayay faahfaahin fara badan la gelayay ay ahayd. maalinta labaadna maalintii madaxda waaweyn ay joogtay ahayd marka iyadana waa la lafaguray laakiin waa si gaaban baa magaranaysa loo sameeyo inta muhiimadda ayaa laga soo qaaday. marka aniga su'aalaha la weydiiyay waxa weeyaan halkee maraysaan wadan ku taaganahay wadadan ku taaganahay halkii loo baahnaa ma taagantiin maanta. arrinta ku saabsan deyn cafinta Soomaaliya muddo ayaad ka hadlaysay goorma laga yaabaa in Soomaaliya laga cafiyo deynta arrinta deyn cafinta haddaan ku noqdo faa'iido leedahay waxa loogu noqonayaana waxa weeyaan muhiimad weyn ay dalkeena arrintaas u leedahay. deyn badan baa laynagu leeyahay deynta laynagu leeyahay iskama bixin karno dhaqaalaheena waa hooseeya 5 bilyan in ka badan baa laynagu leeyahay. beesha caalamkuna waxay leedahay sidii adduunyadii hore 36 wadan oo kale oo Afrikaan u badan ayaa tabteena soo maray wadada haddaa wadada soo martaan oo aan wada fudud ahayn waa leedika deynayaa balaleeyahay. marka deynta oo kaliya macnuhu maahe waxyaalaha inoo furmaya ayaa faa'iidadeedu tahay oo in laga daayaan uga baahanay. marka arrintaasi waan ku celcelinay laakiin haddaan ku celinay waa muhiimadda leedahay baa ayaa u yeedhisa inaan ku celcelino. waxaan filaynaa bisha labaad sanadka soo socda February in fadhi la fadhiisto fadhi la yiraahdo go'aansiga in dawladda Soomaaliya laga daayo deynta fadhiga go'aansiga ama decision point fadhiga go'aansiga in laga daayo deynta Soomaaliya ayaa la fadhiisanayaa bisha February. laakiin waxyaalo badan ayaa ka horeeya waxa inagu inaynu qabanno ay tahay baa ka horeeya waana wadnaayo waa wadnaa wixii la qaban lahaa wax beesha caalamku inay qabato ayaa looga baahan yahay baa jirta wadanada wax organizationska IFIska la yiraahdo inay qabtaan loo baahan yahay baa jira intaasoo dhan waa la isku dhex wada. marka shalay waxa laga wada hadlay waxa weeye qolo waleeyba waxaagi ma wada Soomaaliya wixii ma wadaan. marka waa leeyahay insha Allah taala waxaan filaynaa in deynta meel la isla dhigi doono bisha labaad sanad soo socda. now waxaan ku darayaa waxa weeye aan doonayaa dadka Soomaaliyeed si fiican u fahmaan 39 wadan ayaa wadada la mariyay ya wadada ku dhaca 39 kan 36 way dhamaysteen ya
arrinta deen cafiska wadada waxaa la yidhaha muxuu ahaa Hempeg Initiative la yidhaahdo waxaa la bilaabay 2019 sano ay socotay 19ka 36 wadan way ka baxeen innaga saddexda soo haray ayaan ku jirnaa waa innaga iyo Zimbabwe iyo Sudan annagaana imika horeyna waxaan kuu ballan qaadayaan kuu sheegay waxa weeye arrinta aan marayna adeegeeda wadankeena ka dhaqso badan ma jiro wadankeena ka dhaqso badan ma jiro jaraa'idkana way ku qoran tahay international community waa sheegeen way sida laga dhadhansan karo shirkii wadamada caalamka iyo Soomaaliya sharuudo ayaa diin cafinta ku jira sida yagleelida siyaasad loo dhanyahay dawladda iyo maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya halkay kala joogaanna waad aragtaan saameyn noocee ay ku yeelan kartaa diin cafintaas su'aalo badan waa la naga weydiiyay arrintaas arrinta inclusive politics la yidhaha ama siyaasadda loo dhan yahay macnaheedu ma aha 100% dadku inay israacaan siyaasadda adduunka iyo democracy-gu waxay ku dhisan tahay majority ay ku dhisan tahay ya inkastoo loo baahan yahay haddana in wax la isla garto oo ma garanaysaa meel la wada jeesto haddana adduunku waxa weeye 50+1 ya adduunku sida uu ku socdaa haddaad unanimity doonto in wax walba la isku raaco 100% dee taasi democracy ma noqonayso maanta marka in la kala ra'yi duwanaado waa wax meesha ku jira oo waxay dan u tahayba dimuqraadiyadda dan u tahay marka here and there waxyaalo yar oo la isku khilaafsan waa jiraan kuwaana insha Allah si degdega waa loo xalili doonaa dalkani waa wada socdaa su'aasha lana weydiiyana taas ay jawaabteedu tahay waxa weeyaan always waxa jiri doona khilaafyo yar yar oo dimuqraadiyaddu wadato ayaa jiri doona laakiin majority waa wada socdaan ya majority was that's what democracy is democracy-gu taasuu yahay siday doontaba haatee haddana halmuceedyada waa la isku raacsan yahay dalka haddii inta laga cafiyo cidiidaysaa ma jirto dalkaasi inuu adduunyada la falgalo cidiidaysaa ma jirto dalkaasi in khayra loo furo lacagaha adduunka cidiidaysaa ma jirto marka runtii anugu aad iyo aad baan kalsooni weyn ugu qabaa inaan inagoo wada soconno deynta lanaga cafin doono in dhaqaalaha dalkan soo gelayaana dalka oo dhan wax u tari doono arrinta lacagta dadka Soomaaliyeed muddo ay lahaayeen lacag la'aan oo shilinkii Soomaaliga meelaha qaar lagama isticmaalo oo waxa la isticmaalo lacagta mobilada la isku diro si weyn ayay baahi ugu qabaan bulshada xagee maraysaa lacagtii Soomaaliga ay lahayd arrinta lacagta World Bank ama banka adduunka oo hay'adaha inaga caawinaya ku jira madaxweynuhu uu kala hadlay arrintaasi waxay taagan tahay waxa weeye horta wixii loo baahnaa lacagta in la sameeyo oo ahayd shaqada inaga laynooga baahnaa ama central bank looga baahnaa bankeena dhexe ama wasaaradda maaliyadda looga ama meel kale looga baahnaa waa la dhamaystiray waxaa soo samay waa la soo wada sameeyay hadda sidaan hore u sheegay lacagta soo daabacadeedii waa kharash u baahan kharashkay u baahnayd ayaa ma garanaysaa aan ku tala jirnaan aan wadnaa sidii loo heli lahaa 40 milyan lacag yar maaha lacagta lagu daabacaya kaliya ayaa dhowr iyo 20 milyan ya marka doonideeda ayaan ku jirnaa World Bank ama banka adduunku wuxuu ka mid yahay hay'adaha garowsaday in lacag loo baahan yahay ee damacsan in lacagta ku soo daraan dhowr wadana wuxuu ogaanisay waa jiraan laakiin halkii loo baahnaa wali maanan gaadhin xaqiiqadu waxay tahay waxa weeyaan in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladaba ka go'an tahay in lacagtii Soomaaliya soo celiyo oo lacagta Soomaaliyeed wax lagu kala iibsado marka faces baa loo qaybiyay ama martabooyin baa loo qaybiyay martabada ugu horeysa waxa weeye wixii shilin ee adduunka yaala in la cusboonaysiiyo waa martabada ugu horeysa weeyaan la cusboonaysiiyo shilin Soomaaliyeed oo jagagax leh in la keeno kuwa hore la saaro oo la keeno shilin Soomaaliyeed oo aan la falsifay gareyn karin la khaldi karin ama halkan lagu soo daabici karin features kale aan la daawacayn in la keenana doonaya dadka qaar adduunka waxay isleeyihiin in lacagta Soomaaliya hadaad keentaan talow sidee reaction-ka dadku noqon doona ya ayay leeyihiin laakiin anaga reaction-kaasi uu noo muuqdaa waxa qof walba shilin buu doonaya marka shilinkaasi wuxuu noqonayaa shilin value leh hatta value-giisa sare u ka cibaan anagu isleenahayo qof walba dollar haysta inuu taa ku bedelo ayuu dooni doonaa waan isleenahay waxyaalaha higsiga dalkan ah ayuu ku jiraa la doonaya in la qabto
mudane wasiir ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda magaalada Muqdisho dhibaatooyin ay ku qabaan wadooyinka xirxiran iyo lacaga ururka al-shabaab ay qaadaan hoos u dhac dhaqaale arintaas miyuusan idinku keenin laba su'aalood saddex su'aalood baad weydiisay mid waa dhaqaalaha iyo waa effectka midna waa shabaab ee waxay qaadaan midna waxa weeyaan wadooyinka xirxiran saddexdaa weeyaan midba mar baan ayaan ka hadlayaa arinta shabaab iyo waxbay qaadaa horta anigu kama warayo waxay qaadaan waa maqmaqlayna wax qaadaan xaqiiqadu waxa weeye lacagta dawladda Soomaaliyeed ba xaq u leh inay qaado dawladda Soomaaliyeed waxa weeye dadku soo doorteen oo dalka ka mas'uula weeye adduunkana waa sidaa weeye one government baa jira one nation baa jira dalku soo doortaan wixii lacagta lagu qaban lahaana dalka lagu dhisayaa waxba lagu burburinayo marka lacagta cid kale la siiyaa inkaar bay dadkani qabaanay waa lacag dalka lagu burburinayo inkastoo aanan ogeyn waxa la qaado dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegay waxa weeye lacagta aad bixinaysaan dawladda Soomaaliyeed idinku soo doorateen ee dalka idinla dhisaysa ha loo dhiibo ha la siiyo hana lala xisaabtamo ya taasi waa taa weeye arinta dalka xirxiran ana sheeka ku haya New York baan tagnay New York sawiraan ka soo qaadaan sawiro ilaahay baan ku dhaartay magaalada New York 20 milyan oo qof baa ku nool meel walba waa la xiray meel walba leena madax badan baa joogta meel walba waa la xiray arooryaha kamida ayaa waxaan damcay inaan meel tagoon dawo ka soo iibsado meeshii aan joogay taxi ma soo galayo waa socday meel baan tegay meeshii baan taxi ka qaatay wuxuu yiri meeshan wax badan ma jirto laakiin waan ku geenayaa waan gaari kari weyn meeshii ya waxa fan hour baan soconay ya saacad barkeed yaa soconay markaas wuxuu yiri halka ma gali karo tana way xidhan taasina way xidhan tahay inaad dhaadhacday weeyaano aad lugayso maab yar buu ii sameeyay waan lugayay meeshii baan gaari dawada baan ka soo iibsaday taxi qaadaan waay laana halka ciidama tagayso waa adduunyo dhan oo xidhan 2 saacadood baan soo socdaan ku dhaaka waran 2 saacadood baan soo socday maxaa kaaga haddana wax buuqaya iyo wax juu qoranaya iyo qaanuun waa qaanuun ee inagu dadka Soomaaliyeed qaanuun dama dhageystaan nin walba isaga iska macalinkiisa amoogta Soomaalida qof walba madaxiisa wuxuu ku jiraan adduunku nidaamkaas ku socda maxaa kaaga daran meesha 20 milyan baa joogo yaani markaad socoto biyo socdaad moodaa dadka way sunsumayaan wallahi billahi markaasana si ay u dhaqaaqaan sidaas moojid u socota biyaha maaragtay markay soo rogmadaan dadku soo rogmado dadku sidaas u socdaan xaqana raaxan kala socota markaas baa nin booliis meesha taagan oranaya halkan way xidhan tahay hadaba dadkii socday ka baydho xagga qabta waa la isrogayaa wax jooq oranaya iyo wax bug la soo baxaya iyo wax kadeed keenaya toona ma jiraan halka mara uu boonay halkaas ma la maraya waa laga soo baydhaya dadka waa la wadaa waa la manage garanaya mugta laakiin de Soomaaligi ma aqbalayo gaariga intuu ka soo dhaadhaco kula dagaalamayo ya ma dadkan wild wallahi alazim taamba Soomaali baan ahay gowdhi marka waxay dantu kugu qasabtay ba adeer la yeela waxay dantu kugu qasabtay ayaa la yeela insha Allah dalkan uu furmi doona laakiin de in la iswada dilay miyaan rabnaa in la iswada dilo oo dadka la laayo miyaan rabnaa meeshii security ayaa ina xukuma ya waa in cid xukunta Soomaa security ayna xukuma waa inuu security yiraahdo maanta meeshaas way xidhan tahay oo dibeetana aqbaltu nidhaahna maalinta dambe waa la furi okay ya hadii laakiin qof weyn ana duu yiraahdo waa ninkii oran jiray aniga gabay ku jirtay gaari aniga ya marka qof walba uu ana oo kana yiraahdo ana kana degeesaas la keenay waan isku jiray geesi wali alaha ayaan ku noqonaynaa mushaaraad ayaad bixisaan muddo 2 sano iyo wax la jirada dawladda Soomaaliya way shaqeynaysaa marka laga tagna mushaaraad bixisaan dadku waxay ka sugayaan inaad dib u bilowdaan kaabayaashii dhaqaalaha sida waxbarashada iyo jidadka goorbaad iclaamin kartaa in wasaaradda maaliyadda ama hay'adda dhaqaalaha inay ka baxdo in mushaar ay bixiso wax kale ay qabato aad baad u mahadsantahay waa su'aal cid walba ku taagan Soomaa anay igu taagan tahay aday ku taagan tahay mushaarkeena ka weynaana weeyaan wax kala qabano dhisna dalka marka
adduunku laba budget buu leeyahay iska ram yaalla budgetka muxuu ahaa horumarinta iyo budgetka kharashka dawladda lagu kabayo administrationka administrative budget iyo development budget baa la kala yidhahdaa inagu kaan haynaa weli waa kaan lagu kabayo salaariska lagu bixinaya laydhkan lagu bixinaya biyaha lagu bixinaya waa waxyaalihi minimumkaabaa lagu bixinaya waxaan horta ku ballan qaadayaa sanadkan iyo sanadkii ka horreeyeyba inaan waxoogaa lacaga siinay muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliintaba labadaba wax waan u kordhinay horta awal aan jiri jirin ya 3 milyan iyo 2 milyan waxaan kaas inaan ugu daray ayaa xaqiiqa haddana waa lasii kordhin doonaa laakiin issue waxa weeye arrintaasi waxay hirgalaysaa marka deynta la inaga cafiyo aad buu mahadsan yahay wadane cabdiraxmaan ducaale bayle waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ah daawadayaal wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo waraysi siinayay telefishinka Universal